باريس برتمها سنددii 1800 iyo dunidoo la baxadegaysay dilaa qarsoonaan cidi weli falowgiisa qaban meel kastoo aad istaagto waxa daadsan dhibanayaal meydkooda iyo bukaan socod ay galaafteen cudurrada raabishka daacuunka iyo qandhadii cagaarnayd fayras iyo bakteeriya arxan daran oo ilma qabatay ayaa ku la xadsanaya wadooyinka waaweyn ee Yurub dunidu waxay u arkaysay oo ka arkaysay meel aan carro lahayn oo dabeecadda rabaaniga taagsigeedu lama huraan yahay reer Yurubna waxay ku tilmaameen kaba dambaystii joogitaanka aadanaha heerlada guudkeeda balse laakiin hase yeeshee ninbaa kaligii u arkayay duulaan dagaal oo iska dhicin u baahan Luis Pasteur وسينيسيان ay xaradhaamisay cadhada cuqdada uu ka qaaday xumadii typhoid ee qoyskiisa oo idil xabaasha u xawadamisay halbowlayaashiisa dhiigga qaada ciil dartiis bay dab isugu dhalan rogeen cadowga wuxuu ku eegay kana eegay meelaan aynigii ku dhicin inay ka sahamiyaan bakteeriyadan ilma qabatayda aadanaha dugaag bay u arkaysay ay ugaarsigiisa ku roonaanayso hadba tirada badan ay aakhira u dirto Pasteurna waduu raadinayay uu arsigiisa ku xalaalaysto wuxuu hankaabsaday waxalaale wuxuu hubo arkayay uu kaga gacan sarreeyni lahaa waxaan bini aadamku arkayn midiyihii buu afaystay boqolaal tijaabo qalab uu isagu hindisay iyo falkinta hanaanka caanka ilaa xilligeenan ee pasteurization karkarinta noolaha dilaaga ah isaga oo nool talaalo sirdoon oo habdhiska difaaca jirka u carbinaya sidii uu aqoonsan lahaa jeermisku marka uu jirka soo galo haddii uu shaqadiisa afaynta xubnaha muhiimka ah bilaabo ciidan buu jirku judhadkiiba u diraa ku toogto oo ka toogta madaxa sidaasna lagu xakameeyo hanjabaadii xumadii cagaarnayd furuqii xoolaha laayay gaftin halkan ayaa lagu luqun jabaadhaya rabishkii idleeyay reer Yurub ee baabi'iyay xadaarado kumayaal sano soo dhisnaa Pasteur oo ka guulaystay xanuunadan ugaarsadayaasha waxay noqdeen kuwo iyaga la ugaarsado bakteeriyadu ilaa heer bay gaadhay laba qolo isu kala socdo qolo jirka heshiis la gashay oo magangalyo dalbatay la diyaara cashuurta oo dheefteeda la garab taagan si ay u ciribtirto qolada ay magaca wadaagaan ee fallaagada ah Luis Pasteur markan hakaab uu yiri oo samarsiinta maskaxdiisa xasuusaha hilowga badan ayuu ku qanciyay inuu argudashadiisa si togan uga soo baxay balse dagaalkii jeermisku bartaas kuma idlaanin guushiisu waxay iba furu ahayd waalida cudurrada fayrasyadii iyo bakteeriyadii isdhexgal bulsho ayay sameeyeen mararka qaarna iska caabin iyo soo rogaal celinba way falaan Luis shaqadii casrigiisa uu gutay isweydiinta dhabtaas waxa weeye yaa la loodin doonaa dagaalka kama dambaysta ee aadanaha iyo cudurrada casrigan aynu joogno